wallahi deeqdan horta waxaa la yidhaahdaa waa Pan African University waaye. Waxaa loogu talagalay all African students for development. Dhammaan ardayda Afrikaanka oo dhan way u furan tahay inay soo xareystaan, soo codsadaan in lagu horumariyo ardayda Afrikaanta loogu talagalay. Waa deeq waxbarasho loogu talagalay ardayda dhammaantood sanad walbana ay u furan tahay inay xareeyaan. Waxayna wadataa sidoo kale pocket money-geedana sidoo kale way wadataa. Waxbarashadeeduna waa free. Markii la yiraahdana go and bag-geedana markii koowaad ardayga uu baxayo iyo markuu soo laabanayana ayaga jeebkooda waaye. marka ku sii faahfaahiyo Pan Africanku hal qayb kaliya ma ahan, waa takhasusaad kala duwan way bixiyaan. wadamo kala duwan ayaan host gareeyay. jaamacad gaar ah ay leeyihiin ma lahan, laakiin wadamada ay ku yaalaan ayaa host gareeyay. for example haddii aan ka hormaro wadankan Cameroon, waxay bixiyaan ama la yiraahdaa magacyo kala duwan ay leeyihiin ayaga loo fiirinayo takhasusada ay bixiyaan. qaybtan Cameroon waxaa la yiraahdaa waa Bauges waaye. Bauges la yiraahdaa Pan African University Humanities Social Science laga soo jaabiyo. waa qaybta Humanities and Social Science. waxyaabaha bixiyaan waxaa waaye hayaan waa governance and regional integration, iyo sidoo kale qaybihii languageska oo ah transborder language iyo translation and interpreting iyo waxyaabahaasi hayaan qaybtan Cameroon. waxaana la yiraahdaa waa Bauges. marka usoo laabto qaybta Kenya waxaa la yiraahdaa Baulasi, as I think, I'm not sure, laakiin saas oo badina magacaas Baulasi waa science iyo technology-da iyo mathematics iyo engineering iyo waxyaabahaas ayagana sidoo kale ay bixiyaan. waxaa host garayso Jomo Kenyatta, jaamacadaasi ku dhex dhigtaan. annagana waxaan host garayso qaybta Cameroon waa Yaounde 2 jaamacad la yiraahdo, ama Yaounde 2 waa jaamacadda caasimadda qaybteeda labaad. qaybta Nigeria sidoo kale iyagana waxay bixiyaan in Paulus la yiraahdo umaleyna beeraha sida maxaa la yiraahdaa xanaanada xoolaha, health science iyo waxyaabahaas ayagana ku shaqo leeyihiin ay bixiyaan. Nigeria jaamacadda Ibadan in la yiraahdo umaleyna. Algeria markaad timaadana waa water policy iyo energy policy iyo waxyaabahaas ayagana bixiyaan sidoo kale, iyo climate change. so marka waxaa loo qaybiyey wadamada Afrikaanka sida centralka, maxaa la yiraahdaa in sheeg waqooyiga, koonfurta, meelahaas oo dhan loo qaybiyey jaamacadda si ardayda uga faa'iideystaan Afrikaanka. marka heerarka deeqda waxbarasho ay tahay haddaad noo faahfaahiso iyo cidda fangaraysaba ama dhaqaalaheeda bixisa. jaamacadda horta Pan African University la yiraahdaa waxa waana bixiyana African Commission waaye. African Commission ayaa dhaqaalahaasi bixiyo. wadamada Afrikaanta isku soo ururiyeen oo loogu talagalay in ardayda Afrika ka soo jeedo wax lagu baro, lagu horumariyo. waa African Commission waaye. marka heerarka markaan ka hadalno master badge iyo heerarka ay qofku heli karo deeqdan, wallahi waa laba qayb waaye. batch ma bixiyaan, waxay bixiyaan waa master iyo PhD. master and PhD. waa tahay, bal inooga waran processkaad u martay marka deeqdan waxbarasho. wallahi processaas u dheer maanan marin. marka hore CV-gi wixii aan diyaarsaday. horta requirements-ka inaad ogaatid waa muhiim. kow markaad rabto inaad scholarship aad xareyso, requirements-ka inaad ogaatid first waxay tahay inaad priority koowaad aad siiso. markaad requirements-ka ogaatid oo aad diyaarsatid oo aad dhahdid alla ilaahay meelaha la iska qaadi karo aad la iskaga fiiri karo waa intee. meelaha tactiga aad kale iskaga fiiriyo waa experience-ga oo kaleeto iyo sheeg workshops-ka, waxyaabahaas oo kaleeto laga yaabaa in aad la iskaga fiiriyo. ilaan shahaadooyinkii waa la wada wataa sooma. marka experience-gaas xoogaa moodaa in qofkii inuu iska soo dhisay ay wanaagsan tahay. marka requirements-kii aad diyaarsato kadib tartiib waqti dheer ma qaadanaysaba inaad xareyso, kadib waad kusoo xareynaysaa. requirements-keedana marka wax iska adag ma ahan. waxaa ugu muhiimsan shahaadooyinkaaga inay diyaar ku yihiin, sida bachelorkii, transcript-gii inay ku diyaarsan tahay, passport-kii inuu diyaar ku yahay, iyo hal sawir, iyo cover letter ama application letter, iyo sidoo kale recommendation letter from one professor or one lecturer oo wax kuu soo dhigay, iyo hal sawir, iyo sidoo kale
iyo references intaas un weeye ma requirements-keeda wax aad u adag ma aha. PhD-ga waxaa laga rabaa inay qoraan short proposal as I think, marka masterka lagama rabo qaybtan Pan Africanka. hadda waa ii furan yahay waa inta aad sheegayso da'doo kalena qofka masterka waxay leeyihiin soddon sano uu badnaan inuu yahay hadduu rag yahay, hadduu dumar yahayna 35. waa tahay marka waxaad iga warantaa markii aad intaas gudbisay xogtaas aad dirtay, xogta sidaan jeclahay qaab online ayaa loo buuxinayaa. si fiican online lagu buuxinaya markaad dhamaystirto oo wax walbo laga rabay aad buuxiso submit meel hoose qorataad submitaas leedahay. marka uma baahnid cid idin xiriirisay iyo cid aad u daba fariisatay iyo may uma baahnid dad badan way weydiiyeen niyo ma dhankaabaa kasoo marto ma meel baa wacatay oo war niyo balse ku timid laakiin cid aad u daba fariisato oo ilaahay ahayn ma jirto iyo isku daygaaga. haye markii aad sidaas u gudbisay maxaa dhacay marka aad u dirtay? wallaahi waxaa waqtiga qaadanaysaa in lasoo qiimeeyo oo lasoo aqbalo. waxaan u maleynayaa xilligaas xogaa coronavirus dib u soo dhigay inay soo furaan. waxaa lasoo furay xilligii August soo apply gareeyay. jawaabtu waxay soo dhacday Febraayo 1deeda jeclahay ama 9 ilaa 10 January ee meelahaas jawaabtii soo dhacday. Febraayo marka processadii iyo waxbay soo dirayeen macluumaadkii baasaboorkii iyo wixii loo dirdirayay macluumaadka kala la marmarayay. adiga March 3deedii ama 4teedii aan dhahay wadanka waan ka soo tagay. waxaa dooranaysaa marka maalmaha aad isleedahay waa bixi karaysaa ayaga ku dhahayo maalmo soo dooro. maalmihii soo dooranaysaa kadib ugu dambeyn waxaa lagu leeyahay xilligaas ka daba mari kartid waad soo bixaysaa ka bacdi. visa iyo ticketkiina marka ka hadlana annaga safaarad meesha maanan ku lahayn oo Cameroon waxa waaye on arrival ay ahaayeen waxa dhanba ana lagu soo diray Gmail. waa tahay deeqda ayaad heshay waxaad tagtay Cameroon. haye maxaa ku bilowday marka haddaad noo sawirto? wallaahi waad iska garanaysaa qof aan weligii hore u safrin ama aanan bixin oo wax kale aanan ka warhayn wadankii uu ku dhashay uu iska joogay caqabadaha uu la kulmi karayo xagga haddii ahaan lahayd dhaqankii, haddii ahaan lahayd luqadii, haddii ahaan lahayd qaabka dadka u nool yihiin, waxyaabo fara badan oo challenge badan aad kusoo wajahayo. run ahaantii markaad haddana qof muslim ah oo aad kusoo dhex kortay meel wada muslimiin ay joogeen, markaad ka soo baxdo wadanka banaankiisa aad timaad xogaa waxay dadkii kula noqonayaan wax cajiib ah oo aad uga xishooto inaad xitaa madaxa kor usoo qaado. waxaaba igu soo horreysaba markaan imaaday airportka Ethiopia inaan xoogaa yaabanaa oo aan bariirsanaa oo safarkii igu horreeyay ahayd because dadka qaabka say u libisan yihiin iyo waxyaabahaas xoogaa cajiib ay leeyahayd. marka labaadna markaad timaado wadankii oo kaa luqad duwan, luqad Faransiis aan lagu hadlaa wadankan hadda tusaale ahaan, inaad la qabsato aad fahanto ama aad wax soo iibsato ama aad meelo badan aad xogaa caqabad fara badan ay kugu yeelanaysaa because luqadii ayaga English ma yaqaanin adigana Faransiiskii ma taqaanin. xogaa wixii marka waxaad moodaa marka ugu horeyso qaab dhagooleed oo kale inaad ku hadasho oo aad wax ku fahansiiso oo lacagtii xitaa aad ku dhawaaqi karaynin oo calculator aad ugu qorto. challenges fara badan aad ka jirayo xitaa cuntadii markaas xitaa ku dhibaysa inaad la qabsato waxyaabihii la cunayay, waxyaabo ka duwan inta ugu imaaday, waxyaabihii hore aad u taqiinay, waxyaabahaas oo dhan oo culture-ka iyo luqadda iyo challenges ugu horeeya oo ardayga soo wajahaya ka mid tahay. marka ardayga deegaan sida ayaa la dejinayaa noloshiisu say noqonaysaa? wallaahi waxay ku xiran tahay wadamada ay tagayaan oo takhasuskaas ay ka doorteen. aniga tan aan ka warhayo qaarkoodna kuwa kalena waa maqlay waa la dejiyaa qaar oo maxaa la yiraahdaa wax reentii lagama qaado oo jaamacaddii ka fargarayso waxooda dhan cuntadoodaas bisay iibsanayaan ay soo gadanayaan. xitaa cuntada Algeria qaar waa free waaye sidaan maqlaayay ilaa cuntadaas hadii qofkii uu soo cuni karin oo goonidiisa soo gadanayo mooye. jaamacadda Kenya oo kale taas oo kale ayagana waa loo kireeyaa oo lacagta ayaga laga jaraa laakiin meel lagu ogyahay 6 bil hore ayaa la dejiyaa meel lagu ogyahay lagu hayaa markii 6daas bil hore dhamaystaan kadib
free noqon karaan oo meelo kale ay degi karaan meesha rabaan magaalada u guuri karaan laakiin annaga markaan ka hadalno marka waddanka lagaa soo dejiyo qof waddankaagii meesha kaaga soo horreeya horta ku hoos gareynaya lagu geenayaa hadduuse kaa soo horreynin labada habeen ugu horeyso hotel laga yaabaa inaad seexato ayay ku jiifiyaan maalmaha xigana aad ardaydiisa soo dhex gasho aad raadsato meel aad degto adigana sida ahaantaada hosteelaa jiro waaweyn oo jaamacadda dhexdeeda ka dhisan oo loogu talagalay ardayda inay ardaydii meelaha banaanka ka imaaday wax baranaya inay ku noolaadaan marka hostelku wuxuu ka samaysan yahay qof walba qol iyo musqul iyo jikadiisa baradadiisa uu leeyahay meeshaasaa marka aad kiraysanaysaa oo aad ku noolaanaysaa qofkii marka isagaa raadsanayo isagaa kiradii iska bixinayo cuntadiisana iska bixinayo marka kiradaas wax wuxuu ka bixinayaa lacagta la siinayo miya lacagtii la siinaya asaas ku maareynaya lacagtii la siinaya contractiga marka hore uu soo saxiixay ayuu isku maareynayaan marka ilaa inta ayay ku filaanaysaa lacagtaas oo noloshiisa wallahi alxamdulilah waddankan markii aan ka hadlo lacagta masterka u qoran waa 5 waaye waa maxaa la yiraahdaa ardaygu way ku filan tahay weliba waxba haddii uu single u yahay reer uusan kasoo tegin waa xogaa waxaa leeyahay jeebka xogaa wax uu sii gashan karaa wax uu aruursan karaa adiga waxa ugu badan hadduu aad u noolaado 3 bilo ugu horeysaana la dhiibaa kirada sanadkii 3 bilo ugu horeysa iska bixinaysaa bilaha kalena maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa ma bixinaysid bikaw 3 bilood laga wada qaata laga hormarsaday marka bilaha kale waxa laga yaabaa in lacag fiican u harto laakiin 3 bilood uu xogaa noloshiisii kiradaas uu la dagaalamayo laakiin bilaha kale ay wax u save garaysan karaan noolaan karaan laga yaabo $200 ama $150 inay ku filan tahay noloshiisa ama ka yarba $150 ka yar xitaa haddii xogaa uu aad uusan ugu falaadin hotel tegin oo iska baashaal iyo orod uusan gelin $120 oo ku filan kartaa marka ka waran takhasuskii aad dooratay iyo sida aad ula qabsatay markii dambe wallahi systemka waxbarasho aan hore u naqiino way ka duwan tahay horta systemkan maadooyin aad u badanna waa qaadanay masterka maadadiiba waxaa laga yaabaa inaad qaadato 4 maalmood keliya macalinka professorka ku imaanaya Monday Tuesday waxa waaye Isniin iyo Talaado markuu ku yimaado Arbaco waxa waa assignment-kiisa diyaarinaysaa lagu dirayaa group iyo individual assignment labadaba khamiis la soo laabanaya haddana macalinkii cashiro ku siinaya jimcana waxa waaye presentation kii assignment-yada la soo jeedina as group iyo as individual dan maadadaas aad kugu dhamaatay as seminar camal maada kasta u qaadanayna markaa maadadaas way dhamaatay next week Monday waxa bilaabanaya anada lii course bilaabanaysa macalin kala ku imaanaya soo marka 10 markaas ku dhameynay waxa waaye examkeedii iyo imtixaankeedii aan finalkiina la maray semesterkii koowaad xogaa systemka marka xagga inaad ka duwan tahay malaysaa weliba ardayga sanadka koowaad aad inuu u jacfadayo oo xitaa jaanis wax ku karsado ku cuno uu heli kari waaya laga yaabaa because waxdii 8 u baxaya 6 saac break yar helaya wuxuu ku laabanaya haddana 7 saac wuxuu ka baxayaa maadadaas 4 saac macalinkaas u dhamaanaysa luqadda Faransiiska 4 ka bilaabanayso 12 iyo bar fiidnimo iyo haddana u dhamaanaysa soo markuu yimaado ma assignment iyo diyaariya waxbuu fiiriyaa waxbuu karsadaa ma nastaa xogaa caqabad weyn ee sanadka koowaad inuu aad u dareemayo ardaygii aad moodaa oo crash ay wixii waxbarashada ay ku yihiin luqadda waxbarashada bal ka hor maxay tahay iyo caqabadaheeda wallahi luqadda 2 fasal jiro asbaan afrikaan ahaan 2 fasal waa wadamada ka imaaday qolada la yiraahdo francophone-ka iyo anglophone-ka loo kala saaraa anglophone-ka waa qolada English-ka waa fasal ay leeyihiin English ku qaadanayaan qolada kale francophone-kana waa kuwa Faransiiska wadamada ku hadlo ka yimaaday fasal ay leeyihiin iyagana waxay qaadanayaan takhasus ku qaadanayaan Faransiiska ku qaadanayaan halka English-ka oo requirement ku yahay ay qaadanayaan iyagana annagana Faransiiska wuxuu noo yahay maxaa la yiraahdaa isheeg aan qaadanayna noo dheeri maadooyinka caadiga ah 2 fasal sidaas u jira marka waa English iyo Faransiis bal ka waran Soomaali kale oo aad wax iskala barataan waddanka aad hadda ku sugan tahay oo deeqda waxbarashada hela wallahi waa jiraan alxamdulilah inkastoo wadamada kale ay aad nooga badan yihiin markaa fiirisid Ethiopia Kenya iyo Botswana iyo Lesotho iyo aad moodid in nooga badan yihiin ardayda laga soo qaado 3 iyo 4 iyo PhD master soo wada helaan I don't know annaga ma aqaano cilada meesha naga jirto ma annaga ma si umba
nololida I don't know wallahi waxaa la soo qaadaa hal arday la soo qaadaa annaga xilligeena nasiib lahaynay waxaa la soo qaaday 3 arday ku soo baxnay laba isku fasal aan nahnay mid waa reer Boorama waaye gobolada waqooyi ka soo jeeda mid kalena wuxuu iga jiraa gobol waa luqadaha waa transborder language oo baranaya waa nin la yiraahdo Cabdiweli waaye marka saddexdaas sanadkaas ku soo baxnay alxamdulillah laakiin sanadkii hadda hal arday la soo qaaday annaga horteena hal arday la soo qaaday hal arday Soomaali hal arday Djibouti saas ay marka sanadkan sidoo kale hal arday Djibouti hal Soomaali ay soo qaadeen I don't know marka ma aqaan waxa inooga badan yihiin wadamada kale oo annagana aan u yarna ma annaga cilada ma ayaga wali si fiican baan u fahmin marka deeqda hadda qaybtan waxaa ku joognaa Cameroon 4 Soomaali hadda ku joognaa mid gobol noo jiro iyo 3 hadda aan ku joogno hal hostel aan deganahay oo qaybtan governance-ga baranayo deeqda marka sanad kasta waa la helaa sidaan u fahmo si fiican sanad walba waa la soo furaa bishan June aan la rajeynaya in la soo furo inay soo dib dhacdaa muddo sanad walba June ama July waa la soo dhigaa hadda maalmaha soo socdo insha Allah in la soo dhigaa rajeynayna insha Allah la soo furo bal waxaad iga warantaa wadankii iyo sidaad u dhex gasheen wallahi hadda waxaa moodaaba inaan Cameroonese aan noqonay maxay luqadiina waa fahanay oo wax badan aan ka baranay dhaqankiina waa fahanay cuntadii waa fahanay hadda meesha rabnay gobolada rabnaa u safarnaaba iyo waxa wax baqdina nooguma jirto wax cabsiya nooguma jiro wadankii waxa iskala qabsanay si caadi ah normal ah oo aan iskaga noolaan karnaa waliba muddo kale iyo sanado kale fara badan si caadi normal hadda ardayda qaar waxaa soo galaa in deeqaha wadamada Europe oo kale iyo ama wadamada Asia qaar kamid ah ay diiradda saaraan Afrika aysan waxba ku tuhmin bal ka waran deeqadan sida ay ugu furan tahay iyo hadaad barbar dhigto kuwa kaleba heerkay gaarsiisan tahay wallahi way jiraan sax waaye ardaydaas waa maqlay hawo ugu badnaadaan ay sheegeen Djibouti iyo hawo badnaadaan waa maqlay ardaydaas oo kale inay u heleen scholarship-kii la aqbalay haddana iska diiday xilligeeni yar Djibouti aan soo kale oo aanan imaanin u jiray sanadkan inay jirtay waa u maleynaa gabar miya ma aqaan sanad ka horreeyay sidoo kale markaan wareystayna ardayda Djiboutiyaanka markaan wareystay waxay ku leeyihiin ma jeclo Afrika inay ku diyaariyaan wax la mid ah master iyo PhD wax la mid ah waxay rabaan America Canada Europe meelahaas ay jecel yihiin rabaan marka wallahi waxbarashada horta sideedaba ama China ku soo baro ama Mareykan ku soo baro ama Afrika ku baro waxa waa cilmigii waa sidii cilmigiisii iyada un hakala liidato laakiin cilmigu waa cilmi degree hadduu ku ziyaadayo oo scholarship waxaan aad ku helayso fursadna aad u helayso inaad qaadataan qabaa meesha rabto iyo wadankii rabto ha ahaato waa tahay bal ardayga deeqda waxbarasho hele ee dhammaysta fursadaha uu helayo marka uu ka baxo caalami ahaan xiriirkiisa sidee ayuu noqonayaa wallahi xiriirkiisa horta waxay ku xiran tahay ardayga si uu u firfircoon yahay oo activity-giisa u badnaa oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg hadda annaga African Union waxyaabaheeda barnaamijyadeeda programyadeeda oo dhan waa ku xirannahay haddii ahaan lahayd traininno haddii ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa ay sheeg internships haddii ahaan lahayd tababaro waxyaabo fara badan ay soo dhigaan aad aan ugu xirannahay because waa hal bahana hal family marka qofka haddii uu dadaalo oo linkigiisa uu badan yahay waxaa laga yaabaa tomorrow in maxaa la fursadiisu aad u wanaagsan tahay inuu success uu ku noqdo ama maxaa la yiraahdaa qayb uu ka noqdo AU ama African Union inuu qayb ka noqdo adeegyada kala duwan marka hadda tababaro ka dheeri ah daraasadda meeshan wallahi way jiraan inkastoo aad u badneen sida training waa jireen sida entrepreneurship and innovation kale waa jiray workshops oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg sida lagu horumarinayo ardayda African students ugu jiray wallahi waxyaabo way jiraan laakiin aad uma badna ka waran markaad haysataan xilli firaaqo ah iyo waxaad waqtigiina ku bixisaan wallahi mararka qaar sanadkii hore kale ardaydaas gobolka naga jiro kale oo aan isku bahnahnay oo ban African isla nahnay
aan ayagana marna na soo booqanayo marna annagaa booqanayno si activity football loo sameeyo iyo ciyaaro kala duwan noocyo kala duwan tartamo badan la sameynayay markaasoo kale waa waqti waa ku qaadanaynay sanadkii hore sanadka haddana waa ardayda cusub oo sanadkan timid iyo ardayda hore u joogtay iyo kuwa kale magaaladan degan iyo wadamadan jaad ugu badan meeshan maxaa la yidhahdaa Cameroon iyo Gabon sidoo kale aad ugu badan yihiin kooxa ka socdo kaleetan la yidhahdaa football iyo waxyaabo la isku balansadaa waxyaabahaas xoogaa marka firaaq la leeyahay iyo xoogaa nasiino loo baahan yahay la ciyaara kubadda cagta tan waxaad iga warantaa ajaanibta aad wax la barataan waxaad ii sheegtay inay Soomaalida ka badan yihiin arday ahaan bal waxaad u aanaynayso iyo dadkaas ajaanibta ah sida aad isku dhex gasheen Soomaaliya fikirka ay ka haystaan fariinta ay idinku gudbiseen wallahi runtii horta waa naga badan yihiin annagana waa ku yarnahay meesha weli ma fahmin hal arday oo PhD inta imaaday xitaa weli aad maan u maqlin ma hubo inuu jiro ma umalaynayo niyo wallahi horta taas horta daar waan islahaa oo xitaa maamulka ma soo weydiisa oo asdahay administrationka directorada inaan u tagtaniyo hubo caqabadaas aan haysatay bal ma annaga mise waa meel kale ay ka socotaa ama soo dhaxda horta waa ku fikirayay tan kale annaga hadday taa markaas annaga waa is ogaan lahayn oo dib aan isugu laaban lahayn sooma taa waa ku fikirayay mid kale oo aan ardayda kale horta waa isla qabsanay waa isfahanay wadamo aan aad isku walaashano way jira oo isku maxaa la yidhahdaa walaashano oo walaala camal u dhaqano way jiraan sida Ethiopia kale iyo Kenya kale sida Ethiopia aad isku ardaydooda aad inay isku fiican hamooda aad la isku walaashadaan maadaama aad diris loo yahay la isku dhow yahay wallahi fikirka inaga aaminsan yihiin horta fikir xun ma ahan waa fikir iska wanaagsan oo Soomaali inay dad wanaagsan ay yihiin ay aaminsan yihiin maxaa la yiraahdaa waxyaabaha hadda joorna markasta ay ula kaftabaan dhahaan waxaa kamid ah waa gabdhihiina waa gabdhahaas Afrika u qurxoon waa inay gabdhayda ka soo doorana waa weyn yiraahdaan marka wallahi si caadi un baa iskala qabsanayo maxaa la yiraahdaa iskula noolnahay wax ula qaybsanaa markan dadkan reer Cameroon ka waran dhaqankooda iyo dad muslimiin ah haddii ku jiraan tirada ay ka yihiin wallahi dhaqankooda wax dad xun ma ahan dad heerad dagaalna ma ahan waa iska xasilooni nabada ka jirto wadankii xilliga doontaas ka soconaysa wax mushkiladii wax problem weli aan kala kulanay ma jirto maxaa la yiraahdaa markii la yiraahdo islaamkana waxaad moodaa gobolka aan ku noolahay ama meesha aan joogo xogaa caasimadan aad ugu dhawahay caasimadda waan joogaa waxyara laakiin inaan kasoo baxsanaha moodaa 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo u soconaynaa caasimadda inay kasii badan tahay umalaynaa wallahi waa muslimiinta aad ugu yar yihiin wadanka hadda taqriiban inta ay yihiin aad ma u hubo laakiin markaa fiiriso way ku yar yihiin maxaa ka dareemaysaa masaajidadii waa aad masaajida ma lahan waa ku yar yihiin ma dhisno hal masaajid xoogaa yara dhisana arkay kuwa kale laakiin noo dhow hadda waxaa waa suuq ku yaalo waa aad bay baaba u yihiin oo jidadka islaamiga iskaga tukanaa oo wax yar waayo wuu buuxsanayaa banaanka la iskaga tukadaa marka waxaad moodaa xoogaa inay kaga badan yihiin dadka kale iyo maxaa la yiraahdaa sheeg kaniisadaha inay ka badan yihiin marka xilliyada ciidaha iyo salaada jumcaha iyo dad yar isku soo baxa saas ka dhigan tahay ha jumcaha meel yaraan kugu imaanaa masaajid yar laakiin ciida barxado waaweyn ay jiraan barxado waaweyn oo la iskugu tago oo masaajidka xoogaa kor kasii jiro oo maxaa la yiraahdaa jamaacada dhan meesha iskugu timaado meesha ka dareemaysaa in muslimiintu maasha Allah ay ma ciidi ka hor maba ogeyn waxaa isdhahay waa intaanu muslimiin meesha ku noolaa waxa badinaya laakiin waxay tahay jaadiyana aad uga buuxo muslimiin fara badan ah iyo Gabon iyo aad u sii badinaya qaybtan ay aad ugu nool yihiin marka masterka aad hadda barato wadar ahaan imisa sano qofku diyaarinaya 2 sano waaye waa sanad daraasa iyo sanad internship iyo research waa buugi diyaarinaya internship 3 ama 6 bilood ay marsiinayaan iyo 6 bilood kale oo waa thesis lagu diyaarinayo 2 sano waa tahay ardayda daneynaya fursadahan fariinta is leedahay ila wadaag ama talooyinka
والله ardayda Soomaaliyeed khayr Allah siiyo waxaan kula talinayaa oo aan kula dardaarmayaa inaysan moogaanin fursadaha waxbarasho way jiraan way badan yihiin way kala duwan yihiin wadamo fara badan ay ka yimaadaan kaliya waxa muhiimaddu ay tahay inaan laga caajisin laga niyad jabin la isku dayo inta karaankaaga ah aad isku daydo oo aad waxaan soo xareyso haddii aad kari weysana qof hortaa ku baxay inaad raadiso oo aad linki samayso qofkaas ku baxay macquula aad daadimiyo ila buuxi waxaan hoose meeshaas ku martayse ku gudubtay in la tashi badan oo qofka uu sameeyo wallahi arday badan hadda way nala soo xiriiraan sanadkii hore iyo sanadkanba aadan ugu baraarujinaa waa sii sheer garaynaa markii lasoo dhigo dadkii waa ku wacyigelinaa waa u sheegnaa way tijaabsadeen qaarkood sanadkii hore inkastoo maxaa la yidhahdaa ii sheeg wadamada qaar loo qaatay Nigeria kale Kenya Algeria iyo qaybtanba halka arday loo soo qaatay Soomaaliga ah marka wallahi ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay ka niyad jabin ay mar walba ay raadiyaan fursadaha noocan oo kale ah fursadahan kaliya ma ahan halkan Pan African kaliya ma ahane way badan yihiin meelo badan inay inda u yeeshaan wax badan intii waxyaabo kale ma la yacni ku mashquuli lahaayeen ha ku mashquulaan inay scholarships ay raadiyaan taasoo kula dardaarmi lahaa